ciidamada ammaanka Puntland ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa ay ku xayreen diyaarad siday saraakiil Imaaraad ah. Warsoosaaraheena Cabdiqani ayaa warkan ka waramaya. xawluul waad mahadsan tahay. Wararka ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ciidamada ammaanka ee Puntland ay saacadihii la soo dhaafay ku qabteen saraakiil ka tirsan Imaaraadka oo ka tirsan ama saraakiisha Imaaraadka ee u jooga magaalada Boosaaso tababarka ciidanka Puntland. Wararka waxay sheegayaan in saraakiisha Imaaraadka ah ay ku sii wajahnayeen magaalada Abu Dhabi ama dalka Imaaraadka ay u sii ambaxayeen isla markaana boorsooyin iyo agab ay wateen ay doonayeen inay si toos ah ama baaritaan la'aan laga bixiyo magaalada oo ay diyaaradda saaraan. saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa la tilmaamayaa in ay ka biyadiideen in agabkaasi oo aan la baarin ama boorsooyinka ay wataan saraakiisha Imaaraadka oo aan baaritaan aan laga dhoofi karin magaalada Boosaaso. wararka hadda aan helin waxay sheegayaan in diyaaraddu ay xayiran tahay, saraakiishuna ay ka biyadiidan yihiin in boorsooyinkooda alaabta ugu jirta laga baaro. wixii warar ah ay arrinka ku soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaynu dhageystayaasha ku wargelin doonaa.